muqdisho oo ay xalay qaybo ka mid ah dagaalo ay ka dhaceen saakay jawigeedu waa mid nabdoon dadka iyo gaadiidka ayaa si nabdoon u isticmaalaya wadooyinka waaweyn ee faras magaalaha waa caasimada kadib markii xalay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku guuleystay in ciidamada isku hor fadhiyo wadada Cabdiqaasin dabka iyo xaafadda Miranaayo la kala qaado dawladda ayaa ciidamada gaar ahaan kuwii watay dabaabadaha dagaalka waxay amartay inay dib uga soo baxaan goobaha dagaalka ayna tagaan xerooyinkooda dadka muqdisho ayaa saakay si nabdoon ku soo toosay balse waxa wali laga dareemayaa caasimada xiisado dagaal waayo waxa wali goobihii lagu dagaalamay gaar ahaan degmooyinka Howlwadaag Hodan Kaaraan Cabdicaziis fariisimo cusub ka sameystay ciidamada militariga oo ka godoodsan muddo kordhinta hay'adaha dawladda oo dhawaan u sameeyay baarlamaanka Soomaaliya taasi ayaa saakay mar kale magaalada ka abuurtay jahwareer siyaasadeed iyadoo saraakiisha godoodsan ee carruur ka sameystay xaafado qaar ay kamid yihiin Baramudo ay shaaciyeen in haddii madaxweyne Farmaajo uu ka tagi waayo xafiiska in ayaga ugu guli doonaan xafiiska waa sida ay hadalka u dhigeen oo ka howlgalay aniga iyo saraakiil kale oo boolis iyo military iyo nabadsugu intaba isugu jirto oo ujeedkoodu ahay madaxweynihii hore oo waqtigiisu dhamaaday oo dadka iyo dalka inuu afgambiyo oo wuxuu ku jooga raba diidan oo ka soo horjeedno rabna inaan dadka ka dulqaadno oo ka howlgalna meeshaas la gala maqribkii ilaa hadda ku sugan joogna ka soo bilow dabka weheliye maxaa la dhihi jiray isaga ilaa sayidka maxaa la dhihi jiray isaga ilaa maxaa la dhishanta geed isgoyska maxaa la dhihi jiray bakaaraha inta ka dhaxaysa annagaa ku sugan hadafkaanuna wuxuu yahay haddii alla ogolaado inaan isaga tagno haddii berri waqtigaan hadda joogno waqtigeeda kale uu ku gaaro Farmaajo meesha ma sii joogi doono waa sida madaxweyne u ahay buu ahaa doonaa waxaa waaye madaxweyne Farmaajo madaxweyne hore Farmaajo xilka waqtigiisu dhamaaday waxaa waaye keligii talisnimada dadkan haddii yeelayaan maxamed saad barre joogi lahaa dadka iyo dalka madaxweyneyaal badan baa soo mareen doorashii ku imaan jireen waqtigiisu ninkuu dhamaadaan waa ka tegi jira Farmaajo waa diiday wax aan sharciga waafaqsanayn buu rabaa inuu dadka ku dhaqo iyo dalka raallina kama nihin waana iska dul qaadaynaa waana sida aan xabad u bilownay meel jooji doono anaa hogaaminayay Cabdulqaadir Maxamed Mursamo ah oo gaashaano saraa saraakiil kala joogtay ma magacaabayo laakiin ma maqsuubi doonaan military waa ku jira booliska ku jira ciidamada dawladda u shaqeynayo hore kamid ah gabadh annaga hal wax kale ma haynaba inaan islaafino ka bacin aan doorasho galnaa wax kale ma hayno أنا حقا نروح خسارة وقاري ماشي كيني ما جرى متر لكن كلا أنا خسارة قال أنا كهذا الحق ما ليه أيقا تشوت كوسة دونتا هو الوذاك دقمنا أنا ورقني وحاول متى أنا إيشك هذا أنا بحثون ربنا أنا ورقني كم عالي دون صعد كان هذا هوش أو نمجو جدول وحنا كنت ذكرنا أنا قبل وان وحنا سوين أما هذا هذين أما هذا كرام علي أما ربنا ما بترين وان وحنا لو إنفرماج أسأله أما أو كتر أسأله لبضت ما أوقرون تاي جويس يكري كترني shacabka magaalada Muqdisho ayaa qaarkood ka barakacaya magaalada caasimada ee Muqdisho qaarkood ayaa la hadlay warbaahinta iyo TV-ga Som TV ayagoo markaas ka waramaya xaaladda iyo dareenkooda canshuur baan ka qaadaa jidku waa naga xiran yahay ummadii oo dhan waa cadiban tahay dhibaato culus baan nahayda labada dhinacba wax dana nooma hayaan ama dalka iyo dadka ha u danqadaan ama day u danqanayn hanaga dul wareegaan caalamka ee adduunka oo dhan aan u sheegaynaa isgoys kasta aan xirin Muqdisho ma jiro إلا إكس كله إلا حمر وينه كاران ميل والبي وحرنتها ما قرأت واقع وحن شوقنا لمبرا فرن شوقنا وحن كوارقنا ضد داو أو قريه لقب إحنا يو ضد جرافين جارين ضد بدنا مرة سوق حيا سيد الشيء يو حتى أنا لص عنو دان دليل بالشدة دلك أنا هاي وحن لص شيء إن ضد بدن هذا هوبي لسود البضي أو ديجامة بديها يمي مجالة إذا ما دي كسر بحيان ميلا كره أي أنا لا شيء. وددي بقى وده حرن ميلو البال حري واحد لو حرق جرن ما إنه وحان الدولة ده كعصنا هنا أنت إسلام هو ضد كان جا قوايا دبعتين هاي إنه ودودي كنا لوفره أنسي غير كان وش غير سنة وحامر كتريننا سوماليا نبض يحرمري في مقدسو بعينين أباهنا وكن جعل waxaan u baahanahay in waxbarasho la sameeyo waxaan u baahanahay in 4 sanaba oo nin ku fariisto waa dareemi kartaan hadii xagga qabiilka laga hadlo reer Muqdisho inta dagaal galeen ay Maxamed Siyaad Barre saareen ay aliista hadana Farmaajo ku soo dhaweeyeen xushmad ka badan oo qof sameey lahaay ma jirto
ama qabiil samay lahayd waxaa la rabaa in loo mahad celiyo dadka reer muqdisho waa dad wanaagsan waa dad walaalnimada soomaalinimada qadiyadu ku weyn tahay in xabad loogu jawaabo oo la yiraahdo 2 sano xoogaan ku darsanaynaa haddii kala tana la isku dhufana sax ma waxaan leenahay hal aqligu ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqeyso haddii intaas shaqadooda annaka reer muqdishoana tan annaka caan ku ah aqoon u leh wadankan Mareykanka soo weeraray waa laga diray Ethiopia timid waa laga diray 8 nin oo diaspora oo boorsooyin wadato annaka noo timid inaan diri karno maalin aan aaminsanna oo aan dhowr bir noo qaadanay waxaan leenahay diaspora wadankan dad uu leeyahay social media iyo inta wax iska dhacdaan waxaan idin soconayn wadankan la soo aadin si kastaba hore siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya oo dagaaladii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaga hadlay bartooda Facebook waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo ciidamo ka amar qaata in guryahooda ay soo weerareen hayeeshee wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay kol hore in aysan jirin ciidan dawladeed oo weeraray guryo ay degan yihiin siyaasiyiin Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ayaa qabta rajo in markaasi wada hadal uu u furmi doono xubnaha mucaaradka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya maadaama ra'iisul wasaare Roble uu hore u shaaciyay Cabduqaadir Xasan Cali Som TV Muqdisho.